كولا بصدح بسم الله الرحمن الرحيم طاوق يا كسو دوانا odayaasha waxgaradka iyo cuqaasha ka soo jeeda degmada Tukara ayaa ka hadlay Tukara odayaasha waxgaradka iyo cuqaasha ka soo jeeda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa ka hadlay ciidamo ka socday Puntland sidoo kalena sheegay in dhamaantoodba ay ku midaysan yihiin maamulka Qaatumo Maxamuud Suleymaan Tubeec ayaa warka Maxamuud Suleymaan bismillah Maxamuud Suleymaan Maxamuud Suleymaan ayaa warkaas inoogu soo diray halkaasaan leh Tukaraq ma dhihi karaan markale marka ugu macaanayna ka xumay raaya sidaniyo Sheekh Axmed shacabka magaalada Daadmadheed waxaan Soomaaliland wararka soo diranay warar waxa waay madheed iyo filan raana Daadmadheed ayaa shir uu ku qabtay magaalada London ee xarunta wadankaasi Britain waxa uu kaga hadlay xariga mas'uuliyiinta ka tirsan maamul goboleedka Banaadir ee dhawaan xabsiga loo taxaabay magaalada Muqdisho isagoona tilmaamay in arintaasi ay tahay mid aanay ku qanacsanayn isla markaana ay aad uga xun yihiin dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa hadda door bidaya in xaaladda dalkan aanu ku dhalanay ee Soomaaliyeed midda hadda uu ku jira in laga sii gudbo daawadayaal na fiirsadayaal na arkayaal na dayayaal nagu baashaalayaal na xiisayayaal na danayayaal madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka mid ah xubnaha wafuudda ee ka qayb galaysa xasuuqii 20 sano ka hor ka dhacay dalka Rwanda oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 800,000 oo qof taasoo maalmahanba ay munaasabadaha lagu xusay ka socdaan dalka Rwanda yaa soo diray ma soo diray Soomaali fara badan oo markaasi ka soo baxsanaya dhibaatooyinka uu sababay raafka ay ciidamada dalkaasi Kenya u geysanayaan Soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada Muqdisho iyadoo qaarkood markaasi ay ka warbixin walaal dadka sidii u jeeday aniga waa dilay horta gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro yufdi oo hogaaminayo ayaa magaalada Sheffield kula kulmay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Britain